laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yidhi inakeen baratanne waxaasho inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddaa la joogay maalin dambe oo haddana safar la jooga buu yidhi Aisha maantana waa baratamaynaa inakeen waa yara marmarsato may waa baratamaynaa buu yidhi ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaat oo inantii yarayda fududayd maaha sidii hore way iska bedeshay dabeetana wuu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yidhi tilka bitilka taati u turbu nabigu yidhi salawaatullaahi wa salaamu calayhi midkeen baa arki kari lahaa isagiiyo haweenaydiisu intay dabaddaa u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suuradda ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnimo la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuugu jeclaa subxaanahu wa tacaala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhaqamaha ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maalin ku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamay dee kunya bay leeyihiin anna kunyo ummu Cabdullaahi buu ugu yeedhay imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray ya Aish magacoo badh la gooyo magacoo inna la tuuro inna yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmaya inuu yahay qaab mashaacirta la ilaalinayo Aisha inan yara ay xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu ku yidhi qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tan nabigu isu taago dhinaciisa xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan idhaahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabin waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadiiskii Tirmidhi Albani saxiix ku tilmaamay waa idinku fiican waa kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad يعني مفتاح السعادة الزوجية وشركة خياركم نية قبل يسكت درصدين شركة الرأس مالك هانتي الرسم جاي هيستاني يكون تجارين ينبين له الحب وهلكو كبل مفتاحها كاني مفاتيح دواء الكبض بيلاده هاي المامان علماء يكمل ده التغاضي إن حساب تبضني تزيد المسافات بعدا إن لا يسد القاط وحياة بدن إيش اللي جربه تكالجعل قوة برناضه وحنكو سوكوبي يوم جوريجا مسلم كاي وجوري كالجعيل يسوور فيو ما كنا وجوري النحريس إيوه معاملة في عنيد النصوص القرآن كي حديث كشيء إحسانية إيثارية وناقة صردان شرا عدالة الرحمة وح قرآن كشيء يردن ويوامش على الربو إن لقب برباريو وبتكبل شدا وسوكعية وبتكون جوري خيمة تسوق يقعنا معنى الحب يدك كالجعل كالله هينيو نحريسته عدالة نمرسنانته عفوية تصامحة كل ذلك النصوص القرآن ترى بدن لا شيء يسوي اللي يردك kala kula dhaqan waxa awla ugu horeeya inaad kula dhaqantaan maxay taa nolosha wadaagtaan haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay saa isku tihiin buu yiri arrinkiisa saata waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeela bay leedahay يعني واحد كستين الرالي قال يا بان اسكت ضيع والنبي يقول كد دال إسقى جنيا نار هذه أبو النبي يقول إذا هوين إذا نينك واحد عنك التكبر بين هذا يا الكبرياء مركا وحي سلي أرما تداد وحي الرسم يسوع لقوية صياد هاص صعد هذا وعقدة النقص رجع كتشرت بين هذا عكس قد مرك بين هذا وحكا أصلا سلوكيات كلقوي قناة العناد هذا حدا يقول إن كان داد سني بدر وكاركم وكجومي سنة يا يد أدو حسكان عيسى لكن جوري قد نبته هو جوري labada midna ool ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacad dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi maxamed tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu calayhi mucaad ibn jabal markuu shaam iyo meelaan ka yimay uu arkay qolo boobabkood
culimmadoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yidhi adna aanu kuu sujuudno oo isku dayey wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysaa waa maxay qisadii buu u sheegay nabigu wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhi haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa loodhan lahaa raggiinna u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu siduu jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq